xukuumadda waxay soo saartay qaraar amar la xiriira amniga iyo sida loo dhaqmaayo wax badan oo amni darrada ka mid ah waxay ka timaadaa qalbiga iyo dareenka maskaxda dadka waxa ku jira markaad adigu dareemaysid inaad ammaan tahay haddii meesha aad joogtid si kastay ammaan u tahay laakiin aad dareemaysid inaadan ammaan ahayn ammaan ma noqonaysid marka waxaan maanta rabaa inaan si gaar ah ula hadlo dadka dowladda u shaqeeya mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ciidamada amniga ragga ay ka mid yihiin oo ku soo darsoomaan ganacsatada qaarkeed waa run cadowgu dowladnimadu la dirirsan yahay si dowladnimada loola dirirana dadka dowladda muxuu ahay indhaha u ah ama hormoodka u ah ayaa lala dirirsan yahay laakiin waxaan rabaa inaan isxasuusino saacaddaas aan masaajidka madaxtooyada dhexdiisa khudbada aan ku dukanayno wiilaa lugaynaya oo qoraxda iyo jidka iyo kuleelka iyo jadda iyo geedaha dhexdooda kusii lugaynaya asagoo dhinacyaha weliba iska eegaya oo dhulka fiirinaya oo yaadan mina ku istaagin isla oo geedaha fiirinaya oo jalfis meel ku xiran yaadan dardarin isla oo cadowga fiirinaya oo geedkan macadowga ku jira isla oo intaas socda cadowguna uu ka sii cararayo daba socda weliba maalmihii lasoo dhaafoo dhan wiilasheenna ciidamadeena geesayaasha waa socdeen meeshii ay tagaanba ayadoo cadow ka cararay oo raadkiisii iyo dharkii wuxuu ka tegay iyo iyay kusii marayeen ku tegayaan magaalada muqdishoaan joognaa ninkaas wiilkaa dhallinyarada ma cabsan meeshaasuu intaasuu naftiisu meeshaasuu geeyey 7 biloodoo lasoo dhaafayna xaaladdaasuu ku jiray haddii dowladdu ay xuquuq bixiso dadka dowladda u shaqeeya caasimadda jooga ee maanta jooga askarigaas waa ka xuquuq badan yihiin waa ka dhaqaalo badan yihiin waa ka daryeel badan yihiin waa ka dhib yar yihiin waa ka khatar iyo maxaan ku rahdaay oo bareerid yar yihiin haddana cabsida wiilkaas uu qabaa mid 100 jeer 1000 jeer ka badanaan qabnaa cibro kuma qaadano wax kaba barano wixii shalay magaaladanaan joognay cadowgaas khawaarijta ah magaaladan dagaalo badan ay ku galeen dad badan oo qaali ana waa ku dileen oo nooc walba bulshada ah leh say u dileen iyo aaliyaadkay isticmaaleen iyo inaan wax ka baranay u baahan tahay cadowgaaga waa inaad barataa si aad uga hortagtaa walaalayaal xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex wata in la xakameeyo amni darrada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo 12 wiil saaran tahay oo qorigii dhashiika saa loogu dhagan yahay oo waddada Maka Mukarrama dhac cararaayo qofna lagu maqanci karo magaaladan ammaan waay qoriga dhashiika marka muxuu ku taraa baabuurka qarax lagu dhajinay ma qoriga dhashiika ka celinaya ama qoriga daba mishaarka ama basuuka wiilka aad soo xambaaris nan bastoolad wato dhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaa yaa qoriga dhashiika ka celinaya xaraga u sidanaayo amni uma sidano waa mamnuuc ninka mas'uulka ah ee checkpointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yiraahdo diida na asaaka mas'uula waa lala dagaalama ha ogaado amar cad ayaa la sii askarta checkpoint la mari kara ma jiro ilaa baabuurka maray la fiiriyo la arko cidda ku jirto iyo waxa uu sido wasiir ku jiro wasiir ku xigeenka ku jiro wasiir dawladda ku jiro janan ha ku jiro maxaan ku cid muwaadin caadi ah ku jiro waa la fiirina baabuurka maxaa ku jira laana cadowgu isku soo keenaysiinaya mar ma aha 2 ma aha 3 ma aha 4 ma aha intuu isku soo keenaysiiyay ee uu dhibaato xoog la dadku u geeyay iskuma ekaa karna anaga cadowga hanoo ekaado soo dhar cad wato oo baabuur caadi ah wato baabuurkiisa inta la fiiriyo inta laga fiiriyo hadduu wax naga hadlayn kara bal naga hadleeyo waa mamnuuc baabuur cabdibilaa oo hubeysan oo magaalada maraayo waa mamnuuc in qof mas'uul ah meel checkpoint oo askari taagan yahay roob ku da'ay iridaas ay ku dhacayso laga yaabay inaanu saakay muxuu ahay borosi soo quraacan laga yaabay inuu qoyskiisa iyo gurigiisa problemaad ka jiraan uu ka soo tagay ee taagan halka
inaad dardarto oo askartu ay tiraahdo misdileynaa waa basaco ma xishoonaysid miyaa damiir khaa'innimadii hadda sheekhu uu sheegay khiyaano soo ma aha soo maadan khiyaamayn ummadda muslimiinta ee magaaladan amnigeeda maalin walba cadowga uu ku laaynayo khiyaanadaas aad khiyaanaysiiso kuma soo gaban cadowga ma dhicin khiyaano soo ma aha walaalaha soomaaliyeed mas-uuliyiinta ah ixtiraamka mudan ninkay faham darre ka tahow ogow waxa aad wadatid amni darro waaye amni ma aha waxa aad wadatid waa amni darro amni ma aha ogow ha wadan oo ogaan la'aan ha ugu shaqaynin shabaab adoon ogeyn oo niyadaadu san tahay oo laga yaabo saakay inaad lacag bixisay cashuur ah ama laga yaabo lacag tabarucaad inaad bixisay ama laga yaabo qoyskaaga iyo saaxiibadaada inaad u sheegto tiro shabaab cadow waaye aan iska ilaalin aad soo tiri haddana waddada saas ha ku marin oo ogaan la'aan cadowgii inuu soo dhunto oo isku soo kaa ekaysiiyo oo dadka soomaaliyeed dhibaateeya ha sababin waa mamnuuc ogaada ninkii arrintaasi waxayna waa shabaab nin ogaal ama ogaan la'aan shabaab ugu shaqaynaayo waaye askariga jidka taagan ee joogso ku yidhi ninka dardarayo ama ogaal waaye shabaab u shaqeeya ama ogaan la'aan ugu shaqeeyo ogaan la'aan ha ugu shaqeeyo halka ogaalka ugu shaqeynaya waa dagaalan kula jirnaa min fadlag adiga ogaan la'aan ha ugu shaqeyn waa qodobka labaad qalabka iyo dharka iyo agabka ciidanka loo yaqaano amniga ganacsi ma galo lama keeni karo iska ogow ganacsadow tuutaan container tuutaha ii yaallo oo maxaan ku irahdaa la ii soo daayo iska ogow waa dhammaatay waa lala wareegaa dowladdaa qaadanay ogow baabuur cabdibilaa keeni ma kartid uniform tuuta ah keeni ma kartid waxa kaloo qarxa iyo qaabdarrada iyo hubkana iskaba dhaafba ayaga awalba dood kama taagnin kuwaas walaalayaal waxaan rabnaa cadowgeena yaanan annaga u gargaarin noo gargaari maayo 15 sano ayaa nimankaan dulnimo iyo ihaano ummadda ay ku hayeen waa la garanayaa ummadda waxay gaarsiiyeen degmada aadan yabaalaan maalin dhowe tegey dadkii akhyaartii aadan yabaalo dhan isla joogto waxay dhaheen 15 sano cunug xaafidul qur'aan degmadan kama soo bixin waa maxay dugsiyadaa la wada xiray kulli iska daa wax kale adeeg kale iska daa iskool iska daa bar caafimaad oo gabar ku umush iska daa maxaan ku iraahdaa markay cararayeen ka sii cararayeen ceelashii bambooyin ka siibteen ka tageen war cadowga aan la diriraynaa waa kaas meel uu wax ku xeerinaya aanay jirin dadnimo xataa ay ka tagtay oo dugaagnimo dadnimo xataa waa ka tageen nimanku inaad sabab u noqotid marka in uu dadnimo ka tagaasi uu dadka ku dhibaateeyo adiga macquul maaha hal la joojiyo hal laga waantoobo awaamirtaas waa badan tahay wareegto waaye waad maqli doontaan idaacadaha lagu soo bandhigi doonaa waa la soo qori doonaa website-ka wasaaradaha amniga iyo office of the prime minister meel walbay ku jiri doonaan la soo gelinayaa akhriso waxa mamnuuc waaye la yidhi iska dhaaf amniga magaalada muqdisho muhiim waaye muraayadii dalkan meesha dhabta ee dalka amniga amni darisa laga qiimeynaya xamar waaye aan waana sababtaas shabaabna ay ugu soo mashquuleen forontii la kala xoraysta xamar kuma taalo kama dagaalamaan aag iyo dhul iyo xaafado iyo ma qabsadaan amni maaha in la yiraahdo xagga qarxi xagga weerar qofkan baabuurkiisa muxuu ku dhaji walaalayaalow Soomaaliyeed miirku noo soo noqdo oo caqliga noo soo noqdo oo dadnimada fiican dhinaceeda waa wada jecelnahay dadnimada fiican iyo karaamada iyo sharafta aad iyo aad ayaan u jecelnahay nin qofka Soomaaliga ah muwaadinka ah gabar ha ahaado wiil ha ahaado oday ha ahaado title-ku doon ha ahaado ee arrimahaas lagu qabsado yaanan la isugu imaan jaagboonta uu dardaraay waa la qabtay waa dagaalamay waa la dilay dekada alaabtaas ugu jirta waa lagala wareegay siyaasi soo daba kici kara ayaanu jirin oo nabadoon soo daba kaca ayaanu jirin ninka ogaal iyo ogaal la'aan shabaab ugu adeegayo walaalayaal haddaanu ka waantoobin
ehelku ma aha wax idinka dhexeeya ma laha lianna adeegaas uu samaynayo ahay adiga ku dhima doontida berri maa ogid isagu ku dhima doonee ma oga kuwa ganacsatadaana waxaan leeyahay ganacsigiina meel khayr qabtoo fudud oo ka maslaxa iyo faa'iido badan allah idinka siiyo kuwa muxuu ahay wax xadaya oo tuuganimadu ay u geysayna waxaan leeyahay ayagana iimaanka allah idinku soo celiyo laakiin shabaab iyo cadow soomaaliyeed nooc kastoo yaa taariikhdeena mugan markay dadku u istaagaan waa ka guulaysan jirnay weligeed dadka magaalada muqdisho degan waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan waryaa joog waa gar daran tahay istaag in la yidhaahdo qofkii oo maxaan ku ihahdaa ciidamada dardarayo oo meelaha cararayo la arko in la celiyo la yidhahdo joog waa gar daran tahay jooji baabuurka hala joojiyo hala joojiyo waxaa u shaqaynaya al-shabaab nin walba oo wax maanta sheekh uu ka hadlayo wax abliku samaynayo waa dadnimo xumo iyo diin la-aan waa aakhira beel iyo adduunye beel isla socda kan lacagta dowladda xadaayo kan la dhuumanaayo kan maxaan ku ihahdaa ganacsiga meeshaas uu ka galay kan maxaan ku ihahdaa xarago u sito baabuur inta galay taleefonka la dhex fadhiya ee wiilka gadaashiisa socdaa inuu dhimanayo inuuba aan lahayne war caqliga ha noo soo noqdo soomaaliyey walaalayaal caqligu ha noo soo noqdo shalay aan fiirino aan wax ka baranno reerkanaga markii wax la yeelo reer dhammaa duulaya waxay leeyihin annaga agaasimo waaxid ma qabno annagu maxaan ku ihahdaa wiilishanaga lama dalacsiin 5 sano lasoo dhaafay dagaalay ku jira warcaana hele meeshaas dagaalka kaama jira joojidhe kan muxuu ahay kula dhashay oo ama qaraabada atiin ama saaxiibka atiin magaalada hubka ku dhex wada joojidhe dagaalaan ku jirnaa riski la-aan maahin riskiga iyo khatarta midda wax taraysa aan qaadano mid aan waxba taraynin ee cadowga u gargaaraysa yaanan riskiga inaan ka cararayno yaanan iskaga dhigin iska ilaali baabuurkaaga mugaad meel dhigata ilaasho yaan hoosta wax lagaaga dhejinin muddo kooban waa ayadaas nafsadeedana waxa loo socda inay dhammaato waa laakiin macquul maaha haddaad socotid waa laysoo weeraray aad leedahay xataa wiilal bastoorada wato oo aad wadato ama xataaba ka dhigbo kuwa qoryo aa kaa wata ay ku raacaan laakiin qora dalmishaar oo 3-4 qoray oo wiilkii ku duuduuban yahay iyo qora dhishikaah oo saas oo qora basuuka xag u sii jeedo mid kale xag u sii jeedo oo xikmadda ay ku salaysan yihiin maxay tahay walaalayaal yaa ka xaraga fiican oo ka qurux badan inaad adoo xor ah magaaladaas aada marto iska socotood magaalada aad mushaaxdo ood meeshaad doonto marto qoraga dhishiikaa kuma daafacayo oo maalintaad dhimaleedaad dhimanay oo saacad lasoo dhimashadaada lasoo hormari maayo saacadna la dib dhigi maayo waa aayaat ilaahay aayaatulmunazal ilaahay uu nagu yiri waay rafaad waa wax ka soo sokeeyo dhan waa calaagtan iyo rafaad waay qaraarka xukuumadda ka soo baxay siduu yahay bilxarf in loo dhaqan geliyaan rabnaa dowladda waxaa ka go-an qaraarka xukuumadda inuu meel maro cid kasta oo ka hor timaadana in la wajaho darajaday doonta ha lahaato waxaan maanta marka masaajidkan qiimaha dhexdiisa u istaago u hadlo waxay tahay ma ogeyn inaanu qofna dhihin walaalka soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogto ogow waa la kala baxaa shabaab iyo soomaali waa la kala saaraa shabaab kalkaalna waa dhinac u baxa asna waa la soo celina inuu soomaalida fiican kusoo noqdaa laga shaqaynaa kii kusoo shaqoona waayana shabaabkiisa loo aqoonsanaa dhib ma laha shabaab kama bilowdo kuma dhammaado kan qoriga iyo qaraxa sita ogaada kan qoriga iyo qaraxa sita kama bilowdo wiilka isqarxinaayo nimaa wuxuu soo sheegay midaa soo hagaajiyey midaa lacag soo siiyey midaa soo waday oo meelo isku qarxinaya dadku isku qarxinaya tustusay oo yidhi inta meesha laga galo inta meesha laga galo ee ka noqday waxaasoo dhan waa wada shabaab kan qarxay bas shabaab maaha intaas kadib waxaan rabaa ayadana inaan baaq u jeediyo dhallinyarada soomaaliyeed
كم مقن شباب عن لا يجرم ولا يلا كسر النقطة دل كان دلنا أهين ملهدين ضد كان دلنا أهين ملهدين دين كان دينا أهين ملهدين مطعم ضد كسوماليات قيمة بدناي بقول مسلم هاي وقوة تاجن مساجد عمري دول كجور وصل نقو مالك آدي كتب ماله هكله من آخر بالي أدو يبقى رفاتك عاد كجرت هاي ما مضنا إنا كجرت سببات قد كده حديث أنت تقول جرت بنان صبحي وقد وصحرات وده جرت ما شاد كجرت مع المدن أنا قلت له إيمان سبب أدو جرتها ما جرت إيوه حكومة تيستي دين ما دفاعه هاي سد ما كان ما دفاعه هاي كإماو هذيك فرصة بلاد هاي كوا عن فرصة لهينهم كإيمان كرين أو عن صدي أما أوجادي كقرع إن هذه كإيمان كرين هكود ديسان هكود برضو من كإماو وضل كاجي وضد كاجي والدولة دادي أيجنا باقي صار ودريا وأنا أفرنت هاي عقاب يبهدل يظلم الله ما ديار أهل السودوين وأنا كوا ما أنت إذا ما أمني جاي كجيران حكومة دي كجيران ما حنكون بلدك يكون كان عصدان وجهه كان كوي كصنوعي الله مداته كإماو أيضاً أنت صار آدي وما سنتهين قول خير إن شاء الله تعالى إلهي إذن كيس قوشوا لو ذهي أتكيس يرى أبهانتها آدي وما سنتهين